Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo gardarcad ku taageeray Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta safar ku tagay caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv, waxaana soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaana ay ka wada hadleen dagaalka Yahuudda ay kula jirto ururka Xamaas oo dhowaan weerar lama filaan ah ku qaaday goobaha deegaanada Yahuudda xoogga ku haysto, waxaana ay soo bandhigeen awoodda ay leeyihiin in ay iska difaaci karaan ciidanka Israa'iil oo lagu tilmaami jiray ciidanka ugu awoodda badan Bariga Dhexe, waxaana Xamaas ay tustay dalalka kale ee Carabta in la iska celin karo maamulka Yahuudda uu hogaaminayo ninka siyaasadda ku fashilmay ee Benjamin Netanyahu. Biden ayaa si cad u taageeray maamulka Yahuudda, waxaana uu caddeeyay in mar walba ay garab taagan yihiin Israa'iil. Dhowr qodob ayaa diiradda ku saari doona khudbadda uu Biden ka jeediyay caasimadda Israa'iil. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kaliya ka hadlay weerarkii ururka Xamaas ay ku qaadeen deegaanada Yahuudda ee xoogga ku haysto, waxaana uu tilmaamay in Xamaas ay gowracday dad aan waxba galabsan ee reer Israa'iil. Joe Biden khudbadiisa kuma soo darin xasuuqii ciidanka Yahuudda ay u geysteen shacabka Falastiiniyiinta ee aan waxba galabsan, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo gacan bir ah ku qabato kooxdii dhowaan weerarka ka geysatay gudaha deegaanada xoogga ku haysta ee Yahuudda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ururka Xamaas uusan metelin shacabka reer Falastiin. Sida aan ognahay, ururka Xamaas waxaan u fahamsanahay dhammaanteed inuu yahay dad dhulkooda si xoog lagu haysto oo laga barakiciyay dhulkii ay ka soo gaareen awoowayaashooda, waxayna xaq u leeyihiin in ay dagaalamaan sidii dhulkooda ay u soo celin lahaayeen. Arrinta kale ee dadka la yaabka ku noqotay ayaa ah in Biden uu dafiray xasuuqii xalay Israa'iil ka geysatay isbitaal ku yaala Gaza. Madaxweyne Biden ayaa ku waafaqay hadalladii isburinayay ee ay ku hadleen madaxda Yahuudda. Afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa xalay ka hadlay kadib duqeynta isbitaalka, waxaana uu tilmaamay in shaqaalaha isbitaalka ay ku wargeliyeen in gebi ahaanba albaabada ay isugu dhuftaan, maadaama uu sheegay in ay ku dhuumaalaysanayaan madaxda sare ee ururka Xamaas. Wax yar kadib waxaa laga bixiyay qoraalkii uu soo dhigay afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka ku dhacay isbitaalka ay soo rideen Islaamic Jihad oo si qaldan kaga soo baxsaday gantaalka, waxaana dadka ay ku noqotay sheeko lama filaan ah maadaama laba hadal oo isburinaya ku hadlay afhayeenka ciidanka Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Joe Biden ayaa tilmaamay in gantaalka ku dhacay isbitaalka Gaza aanan ku lug lahayn ciidamada Israa'iil, waxaana uu dafiray xasuuqii xalay Israa'iil ka geysatay isbitaalka ku yaala Gaza oo ay ku geeriyoodeen dad tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 500 oo qof, waxaana sii dheer tirada dhaawacyada halista soo gaaray dadka. Waxaana caddaatay in gaalada ay israacday oo dadka muslimiinta aan weli qaadan go'aan wax ku ool ah oo lagu gurmanayo shacabka Falastiiniyiinta.